سفر الدبدة إن شاء الله هدي له الرالي كان لقضاء عالم كابي وقانا بحدونا الدولة العصبة وسارة العبورتي وابن الويد waxa aan ku shaqeynaa runtii xaqiiqda dhabta marka la heego duruuf adag oo ku saabsan madaxweyne waxa maanta sharaf noo ah runtii nagala soo qayb gashid wixii Soomaaliland ugu baahi badnay xaqiiqda dhabta marka la heego oo ah hantida iyo dhaqaalaha iyo waxa aynu naqdu haysano hadii aynaan caalamka u bandhigi karin dhibaatada iyo culayska ugu faraha badan mar walba in haystitaasay maalgash ama runtii hantida ilaahay noogu deeqay ee dhulkeena ku jirta inaynu caalamka gaarsiino muddo badan bay soo qaadatay intii ay dawladda wadajir iyo waxqabad ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo madaxweyne ku xigeen Maxamed Cali oo Cabdi ay hoggaanka u qabteen waxaana lagu dhiiriyay ka wasaaradahan oo nala barnaamij istaagay inaanu runtii ka wasaaradahan fahamno heerka ay gaarsiisan tahay inuu yahay albaabka kaliya waddanka laga soo galo wasaaradda maalgashiga iyo warshaduhu wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshaduhu muddada aanu haynay waxaa noo suurtooday runtii in aanu caalamka iyo ummadda reer Soomaaliland la wadaagno waxa ay tahay fahamka muhiimka horta waxa weeyaan in la isla fahmo wasaaraddan waxa ay ka shaqeyso wasaaraddani waa albaabka sidaan sheegayba laga soo galo dalka dadka investorska caalamka imanaya markay noo yimaadaan su'aalo badan bay noo weydiin jireen su'aalaha noo weydiin jireen waxa kamid ahaa xeerarka iyo shuruucda dalka u yaala waa oo marka labaad waxay noo weydiin jireen oo had iyo jeer noo weydiiyaan in aanu u tilmaano aanu ummadda u sheegno waxa anagu aanu haynaa waxa ay doonayaan ninka doonaya inuu maal gashado xoolaha in aan uga jawaabno su'aalaha uu weydiinaya iyadoo wasaaradda xanaanada xoolaha la gaadhin qolada wasaaradda macdanta doonaysa in ay na weydiiso su'aalaha inaan uga jawaabno madaxweyne waxa runtii aad iyo aad qiimo u leh in aan wasaaradaha waliba runtii adiga gacantaada ku jira ka madaxweyne ku xigeen ahaan in aan isku xidhannahay oo runtii aan maanta aad iyo aad halkan uga mahad celinayo wasaaradda xanaanada xoolaha oo Dr. Umar Shaciib hogaaminayo wasaaradda beeraha oo Maxamed Ciye hogaaminayo wasaaradda macdanta oo hogaaminayo Axmed wasaaradda maaliyadda oo maanta runtii aan aad ugu faraxsanahay inuu Professor Ismaaciil nala fadhiyo wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda ganacsiga oo runtii marqatiqaadkan aan u dirnay cudur daar ahaan hawlo shaqo ay ku maqan intaasoo wasaaradood madaxweyne waxa naga dhaxeeya xiriir qiimo badan oo aan ahayn inaan wax kala jiidanayno waxay wasaarad walba waxa ay noo soo gudbisay oo wasaaradahaasi waxa ay hayaan si aan ummadda anaguna ugu soo gudbino aad iyo aad baan ugu faanaya xiriirka qiimaha leh ee naga dhaxeeya wasaaradaha iyo isku duubnaanta iyada ka dawlad ahaan aan ku wada socon aad iyo aad baan runtii uga mahad celinaya walaalahayga halkan fadhiya iyo kuwa maqanba isku xidhnaanta iyada inta madaxweyne marka laga yimaado ka wasaaradahan waxa noo suurtooday muddadii koobneed aanu joognay inaanu sameeyno xeerar aan dalku hore u lahayn waxa noo suurtooday madaxweyne oo aad og tahay in xeerkii warshadaha oo aan dalku hore u lahayn maanta uu golihii wasiiradana ka gudbo baarlamaankan hor yaalo madaxweyne waxa noo suurtooday in xeerkii tribalbiga ahaa maanta uu isaguna ka gudbay golihii wasiirada oo isaguna baarlamaanka hor yaalo xeerkii imika halkan lagu soo qaaday qorshaha ugu weyn ee maanta one stop shop oo waxa loogu baahi badan yahay ka wasaaraduna dhawaan insha Allah hadii Ilaahay raali ka noqdo gacanta aan ku haynaa ayadana waa xeerarka iyo shuruucda aan doonayno insha Allah hadii Ilaahay raali ka noqdo dadka investorska noo imanaya inaan u gudbino aad baan ugu faraxsanahay madaxweyne inuu waddankeenu u dhaqaaqay jihadii maalgashiga waxaanu dhiirigelin ka helnaa oo na barbar socda madaxweyne inta marka laga yimaado wasaaradda arrimaha dibadda runtii wasaaradda arrimaha dibaddu sida uu sheegay Maxamed Liijigu waa gacantayada midig laanahu wax alliya waxa investors caalamka imanaya marka ay ku soo hagaagaan ugu horeyso waxay u soo gudbiyaan wasaaradda habraaci ugu horeeyay sidii uu sheegay Maxamed heshiiskii ugu horeeyay ee aanu
كهول قلنا وحان مركي يجوه الرئيس بهشيس كل صحة وسارة الرماد دبته أن حلل قيمة بدن بوسيرك يا جاسمها جود بنقدر حية أبيات نوع فرح سنة يرنتي هوش قيمها عليها إن لقبتان هذه الشر وأنا ما هدعيني مدحوين إسكودوبني ذا يحلقوا جارة لرجالين أدنى لبر برتاجن تهين مدحوينا يا مدحوين كحجينكو أيام قصة عنا وحا عن قصة قينا رنتي حقيقة دبتها مركل لهاجو ظروف أضج وقصة أبصن مركل رنت لقى هذا وسارد أو عن هري لو أقولين إن أنا ما أنت ومدة فهم سينه سداسان إمك وحانو ديارنا إن شاء الله هدي الله الرالي كان نقدر سؤالها إنه ويديا وحكم ذا من الدولة العصبة وسارد عبورتي وابن الويديا مركا إمك الدقائق يجي حركات كيجا الله أركو مدحوينا وحل يراد وسارد ورمانته مالكش وهرم يوتر تمسي إمك الله عبوري كاسينا وحيكون صعوتا لرجالين هذا يبربرستاج جاجا أديك يا مدحوينا أديات بن مدحوينا ديكم هاد علينا إياه أن كنتي وحن هل كان ما أنت الدنيا أنا كوسو قاعد وحقيقة ضربتها وأنا مرحلة ديكم هاد علينا مدحوينا أجاسي مجود يشغال اسكت دوبان ورنتي حولها أنا جو جد سرواب بان هاي جعنتك هاي لأن يرى بويهنا أو قيمة له يرنتي وسير كحجين يديتي هاوس أبو فرها بدن جعنتك هاي مدعويني وساردو وحا يكون صعوتها حقيقة نبتها مركا لايقو لأن يرى بويهنا وأنا جونا أن لبر برتاجنا هاي دير هجلين إن شاء الله دوانا هدي لها الرالي كان نقول مدحوينه حن رجينا إياه أم ببح دبدها بيوبح الدونان سفرت دبدها إن شاء الله هدي لها الرالي كان نقول عالم كابي وقال بيح الدونان دير رجالين بيردن بيهل الدونان إننا نقول بربر استاج الدونان شركة تلصون waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay